xarunta xuquuqda dastuuriga ee maraykanka ee fadhigeedu yahay magaalada new york ayaa waxa ay shalay xaraysay dacwad ka dhan ah dowladda maraykanka ayna ku diidan yihiin sii socoshada xarigga guuleed xasan duraan oo 43 sano jir ah ahna ninka keliya ee soomaaliga ah ee ku xiran hadda xabsiga guantanamo bay qareenka guuleed xasan duraan oo la yidhaahdo wells dixon ayaa waxaa waraystay waryahayaga haaruun macruuf waxaana warbixintan inooga diyaariyey oo arrimahaasi soo koobaya jaamac buule jaamac guuleed xasan duraan ayaa lagu qabtay dalka jabuuti sanadkii 2004 sida ku cad dukumiintiga uu sii daayay aqalka sanadka ee maraykanka waxaa loo soo gudbiyey xabsiga guantanamo bay bishii sebteembar ee sanadkii 2006 halkaas oo ilaa iyo xilligaasi lagu hayay isaga oo aan lagu soo oogin wax dacwad ah hay-adda xuquuqda dastuuriga ah ee maraykanka ayaa sheegtay in madaxweyne obama iyo madaxweyne bushkii ka horreeyey midkoodna maamuladoodii kala dambeeyey aanu wax dacwada ku soo oogin guuleed waxayna sheegtay in iyada oo aan wax dembi ah lagu soo oogin haddana dowladdu sheegtay in la sii hayn karo muddo aan cayinayn qareenka guuleed xasan duraan wells dixon oo arrintaas ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi This morning, the Center for Constitutional Rights filed what's referred to as a habeas corpus petition. This is a legal case that challenges Mr. Duran's detention at saaka xarunta xuquuqda dastuurka waxa ay xaraysay wax lagu tilmaami karo dacwad culus taas oo ah dacwad sharci ah oo ka doodaysa xarigga mudane duraan uu ku xiran yahay guantanamo maxaa yeelay waxa uu halkaas ku xiran yahay 10 sano isaga oo aan wax maxkamada la hor keenin qareen wells dixon oo u warramay haaruun macruuf ayaa sheegay in guuleed xasan duraan lagu haysto sharci darro Mr. Duran's detention is illegal for several reasons. First, because the United States has no statutory or law of war authority to reach into the Horn of Africa. xarigga mudane duraan waa sharci darro dhowr sababoodba tan koowaad dowladda maraykanka sharci uma lahan marka la eego sharciga dagaalka inay geeska afrika qof ka soo qabsato oo ay iska xirto 10 sano waa sharci darro dhanka sharciga maraykanka iyo kan caalamkaba cabdiwaaxid cabdulaahi warsame waa qareen soomaaliyeed oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee degmada columbus gobolka ohio ee dalkan maraykanka mar aan weydiiyey rajada laga qabi karo dacwadda ay xaruntani xaraysayna waxa uu yidhi dabcan waa rajadaasu way badanta maxaa yeelay arrimo qaanuuniya haddii laysu adeegsanayaayo hay-addana waa hay-ad ilaalisa xuquuqda yani xuquuqda uu dastuurkoodu siinayo dadka la qabto oo ha ahaadeen ama muwaadiniin ha ahaadeen ama dad kaloo hadee si kale gacanta dowladda maraykanka kusoo galay ahaadee xuquuqay kulley u leeyihiin marka doodaasu dood furan weeye waana dhici kartaa in aakhirka laakiin mudday qaadan doontaa hadda sida muuqata inay ku guulaystaan soo deynta ninkan qareen cabdiwaaxid ayaa sharaxaya wakhtiga ay ku soo aaday dacwadan oo ku beegan xilli madaxtinimada dalkan maraykanka ay isbedelayso uuna gacanta ku dhigay madaxweyne doorashada ku galay in uu tilaabo ka qaadayo waxyaabaha la halmaala argagixisada oo weliba uu muslimiinta si gooni ah farta ugu fiiqay guuleed xasan waxaan aada uga xumahay in uu doodiisu ay ku soo aaday waktigii la doortay president trump oo sida aynu ognahay aada iyo aada ugu dooda in si adag loola diriro loona maxkamadeeyo sharciga hoostiisana loo geeyo dadka ku taxalluqa falalka argagixisada marka u malayn maayo kolley obama iyo inuu kasii adkaan doonaan filayaa donald trump arrinta ku taxalluqda argagixisada iyo waxyaabaha ku taxalluqay sidii loola dhili karayn lahaa qareenka xarunta xuquuqda dastuurka ee saldhigeeda uu yahay magaalada new york oo u sharaxayay haaruun macruuf in eedaynta ay dowladda maraykanka ku soo eedaysay guuleed xasan duraan ee ay eedayn un dhaafsanayn waxa uu yidhi I think it's important to remind your listeners of this basic fundamental point, and that is that it's very easy to make accusations against somebody, but it's quite a different matter to prove those accusations in court. And it is true. malahayga waa muhiim in la xusuusiyo dhegaystayaashaada qodobkan aas-aaska ah ee muhiimkana ah kaas oo ah
waa wax aad u fudud in qof dembi lagu eedeeyo balse waa arrin ka duwan marka la rabo in ay eedaynta maxkamad laga caddeeyo waa dhab in dowladda maraykanku ay wax badan oo xun ku sheegtay mudane duraan balse eedeymahaasi ma ahan kuwo la hor keenay maxkamad sidaa daraaddeed ayaan dacwo ka dhan ah dowladda maraykanka aan ku xaraynay annaga oo doonayno in duraan maxkamad la hor keeno ama la sii daayo qareen cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada colombos ayaan mar kale weydiiyey in ay jirto kaalin ay dowladda soomaaliyeed ku leedahay arrintan waxbay ka qaban kartaa runtii doodaas kaalintaas waa u furan tahay dowladdeena haddaad fiirisidna dooda hadda hay-addan xuquuqda u doodeysa ninkani qodob weyn oo saldhig u ah dalkan shuruuciisu la yidhaaha habeas corpus oo ah inaan qof la iska qabsan karin isagoon maxkamad la gaarsiin habeas corpus waa yani qaacido weyn oo runtii falsafada dalkan ku dhisan yahay dowladdeenu marka iyadoo ka faa'iideysanaysa taas inay kala doodo dowladdan maraykanka ninkaas in sharci la horgeeyo iyadu sii dayn hadda laakiin inay doodaas furto ugu dambayntii sida ay dowladda maraykanka ku wajihi doonto dacwadda guuleed xasan duraan in maxkamad la hor keenayo in kale iyo tillaabooyinka uu qaadan doono maamulka cusub midna ma cadda sidoo kalena waxa aan weli caddayn xilliga ay dacwaddani soo gabagaboobi karto jaamac buulla jaamac ayaa warbixintaasina la socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay